hal askari ayaa dhaawac fudud ka soo gaadhay dagaal dhex maray koox harimacad ah oo soo weeraray magaalada Wajaale iyo ciidanka booliska magaalada Wajaale wuxuuna harimacadkaasi dhaawacay hal askari oo dhaawac fudud soo gaarsiiyay isla markaasina uu far ka goostay ciidanka booliska magaalada Wajaale ayaa qabtay laba kamid ah harimacadkani iyaga oo sheegay in kuwa kalena ku daba jiraan haddaba askariga uu dhaawac gaarsiiyay harimacadkani Cabdirashiid Geyd oo nooga waramay sida wax u dhaceen ayaa waxa uu yiri marka hore ku weydiinaya maadaama oo tahay askarigii ku dhaawacmay soo qabashada harimacadka taasi oo dad ku sheegtay 3 mir ah oo magaalada soo weeray dhaawac uu ku geystay waa mid inta leeg marka ugu horeysay wuu fududeeyay xubin baa maqan xubin saddexdii midna xabadun baa intii kalena ciidan baa ku maqan markii aan qabanay lugaha ka xidhnay tiyo lukani u fayow ayuu aniga qabtay isagoo ka soo baxsaday ninkii madaxa hayay oo kala baxay qoriga ka hayay aniguna aan xidhay jeeligu gacanta ku soo qabtay afkana ku soo xidhay sidoo kalena taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Wajaale ayaa ka warbixiyay kooxdani harimacadka waqtiga ay soo galeen magaalada Wajaale iyo cabsida ay dadweynuhu ka muujiyeen waxa weeyaan baalkan xalay buu galay guri caruur iyo laba qof oo ku jiro u galay way soo dhaafeen dusha ayay kaga handaraabeen iyagoo dadkii markaa ku buuqsan ciidankii baa sidaa ku baxay gurigii waa la galay dee guriga daaqayuu kolba dhinac u boodayay daaqadaha dabadeed askartii qoryay qaadatay sidaa ayay qoorta kaga qabatay iyo lugaha qoryahani faraaqar gale sidaadii loo qabtay ee lugihii dambe laga xidhay yaa dee askarigaay u cunay labada jeeniya hore qabtay yidhi afkiibuu la soo lacay sidaasuu farta ku goostay harimacadkan muddooyinkan u dambeeyay laga sheekeynayay intay leegba ku soo galeen meeshan dee tirada ayaa garanaya dhowr xabbaa la arkay horta ilaa 3 waa la sheegay mid aqal buu ku jiraa iminka oo waa la hayaa kii kalena meelahaas oodaha iyo xaafadaha ku jiraa dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa habeenkii xalay ahaa wax indhaaba isku geynin cabsida ay ku dhaliyeen kooxdani harimacadka ah iyagoo dadweynaha reer Wajaalena isla dhex marayaan inuu xawayaankani yahay harimacad iyo inuu yahay shabeel